dad wada barooranaya oo dhahaya walaalayaal hana dilina ayaa madax laga wada toogtay taasi ayaa taalla Beledweyne guri walba war degdeg ah musiibo ka dhacday duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan in ka badan 20 qof oo shacab ah oo hal goob lagu dilay in ku dhow 10 baabuur oo ay ku rarnaayeen raashin waa la gubay falkan waxaa geystay sida la sheegay ururka hubeysan ee Al-Shabaab dil wadareedka naxdin xoogan ayuu abuuray meedad dhulka daadsan oo si xun loo dilay ujeedada loo beegsaday dadkan maxay tahay shabaabse maxay ka yiraahdeen mucjiso goobta falka uu ka dhacay lagu arkay dad kale oo Beledweyne ka baxay oo dhacdada maqlay si ay u soo eegaan waxa meesha ka jira oo ehel dhowla ahaa dadkaasi la xasuuqay ayaa sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan in jidka ay miino kula qaraxday dadkaasi gadaal ka geeriyooday waxa ku jiray allaha u naxariistay macallin caan ka ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waa war degdeg ah iyo hayaanka news fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kana Facebook follow soo dhee muuqaalkan like saar siina share garay si saaxiibo badan oo sidaadoo kale ay u gaaraan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah aan halkan ku soo gudbino aad baad u mahadsantiin dhammaantiin muuqaalkan like saar oo sii share garaya waxaan ku bilaabayaa xaaladda cakiran ee ka jirta duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saakay aroortii hore kooxda Al-Shabaab ay weerar dhabagal ah ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliya kaas oo sababay khasaare aad u xoogan weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaan afar irdood oo ku taala duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida ay inoo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka xoogaga weerarkan fuliyay ayaa gubay ku dhawaad 10 gaari oo ay la socdeen dad shacab ah waxayna sidoo kale rasaas ku fureen dadkii saarnaa baabuurtaasi mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarkan lagu dilay ku dhawaad 20 qof isla markaana la gubay 7 gaari kuwa oo ka baxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan tirada guud inta la dilay waxa ay maraysaa 17 qof oo rag ah dumar iyo caruur isugu jiray 7 baabuur meesha ayaa lagu gubay ayuu yiri qofkaasi dadka deegaanka ah oo warbaahinta la hadlay sidoo kale waxa qaraxyo sidoo kale lala beegsaday baabuur kale oo gurmad ahaan u tagay goobta sida ay markaasi u soo qaadi lahaayeen meedadka iyo dhaawacyada ka dhashay weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaadeen dadkaasi shacabka ah xaaladda ayaa wali aad u kacsan waxaana haatan dhaqdhaqaaqyo laga dareemayaa deegaan hoos yimaada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasi oo ay markaasi isku fidiyeen ciidamada hubunta dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada dawladda iyo kuwa Hirshabeelle oo garab ka helaya maleeshiyaadka macawisleyda ay howlgalla ka wadaan gobolka Hiiraan halkaas oo ay dagaalo culus kula galeen kooxda Al-Shabaab oo laga qabsaday deegaano dhowr ah kadib dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa iyaguna waxay bilaabeen weerar argoosi ah oo ay ka fulinayaan xilligan gobolka Hiiraan waxaana ay gubeen ceelal iyo guryo oo ay markaasi sidoo kale ku sugnaayeen dad shacab ah si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan balse dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa shabaab ayaa ka sii daraya gaar ahaan waxa uu dagaaladaasi ka soconaya gobolka Hiiraan dhanka kale waxaan eegi doonaa war ay goordhow soo saareen ururka hubeysan ee Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay dadkii shacabka ahaa ee maanta ay ku laayeen gobolka Hiiraan iyaga oo sidoo kale u dhigay xasuuqaasi weji kalena u yeelay qoraal lagu baahiyay warbaahinta taageerta kooxdaasi ayaa lagu sheegay in dadkaas oo lagu laayay tuulada lagu magacaabo afar irdood ee duleedka magaalada Beledweyne ay ahaayeen maleeshiyaadka macawisleyda waxay intaa ku dareen Al-Shabaab inay sidoo kale gawaarida ka baxday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay iyagu gubeen isla markaana sahay iyo saanadba ay u wadeen maleeshiyaadka macawisleyda sida ay Al-Shabaab warka sidaas u dhigeen inta la xaqiijiyay 20 ka mid ah maleeshiyaadka macawisleyda iyo xubnihii gurmadka u waday ayaa goobta lagu dilay waxa sidoo kale gubnay 8 ka mid ah gaadiidkii ay wateen halka qaar ka mid ah gaadiidkaasna ay gacanta ku dhigaan
sida ay ku sheegeen qoraal ka soo baxay ururka hubeysan ee Al-Shabaab. hase yeeshee dadka deegaanka iyo ilawareedyo ka madax bannaan ayaa hayaanka news u xaqiijiyay in dadka la laayay ay ahaayeen dad shacab ah. Al-Shabaab ayaa saaka aroor hore weerar dhabbagala waxa ay ka fuliyeen deegaanka Afar Irdood oo ku yaala duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxayna gubeen ku dhawaad 10 gaari oo ay la socdeen dad shacab ah, iyaga oo sidoo kale rasaas ku furay dadkii saarnaa gawaaridaasi. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhacdadan ay argagax weyn ku abuurtay qeybaha kala duwan ee ku nool dadka Beledweyne. guri walba tacsi ayaa taala maanta, xaaladdu waa allow sahal. haddaba daawade, dadkaasi shacabka ah ee lagu xasuuqay deegaankaasi dhaca magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaad ugu soo duceyn kartaan qaybta hoose commentiga. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.